intaas markay dhacday dadkii masraxa saarnaa waxay shiteen hees la yiraahdo alla laba la isku dagaaliyo alla labadeenu caawa ma isku boodna hees la yiraahdo laba la isku qabsaday dumarkii xijaabadii iyo dhaylaamahay dhigteen raggii iyo dumarkii laba waxaan ku irin ninba ninku ugu dhawaa ma aragtay buu ka rifay dagaal jugjac. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan salaamayaa saaxiibada walaalaha iyo qoyska ku xidhan Nimayra Nuux. haddii aadan horey subscribe u saarin ama ay tahay muuqaalkani kii kuugu horreeyay channelka fadlan subscribe saar, like dheh oo la wadaag asxaabtaada si muuqaalkan uu dad badan u gaadho. Mahadsanid. Inta aan sheekadan idinka sheekaynayo haddaad aragtaan gadaasheeda wax marmarayo socsocda ii sheega maxaa yeelay way naga cabsiyeen jinni iyo waxay ka sheekeeyeen sixir iyo balaayo. aan bilaabo. sheekadan markii ugu horreysay aan akhriyay ama aan daawaday waxay ila noqotay wax khayaal oo aan maskaxda gali karin. mar way iga yaabisay way cabsi gelisay, marna way iga qoslisay aad baan ugu qoslay. bal idina ila yaaba oo ila dhageysta sheekadan. ka hor qisada inta aanan bilaabin muuqaalka ma soo qaadan karayo oo copyright baa la isku qabsanaya, laakiin waxaan idiin soo gelinayaa sawiraanta dadkii meeshii aroosku ka dhacay iyo dadkii waxaan qisadani ay qabsatay insha Allah. qisadan waxay dhacday dabayaaqada sanadkii 2020ka. waxay ka dhacday wadanka Masar, gaar ahaan tuulo yar oo la yiraahdo Cisba Cafiifi. tuulada waxaa dega dad aad u yar. wiil dhalinyaro ah oo tuulada ka soo jeeda baa waxay iscalmadeen gabadh dhalinyaro ah, marna ay yihiin xigaal dhow. carabuhu waxay sameeyaan marka farantigelis ama way isu doonaan labada qof inta aysan is aroosin ka hor. waqtiga farantigeliska waxaa laga yaabaa mararka qaar inay qaadato sanooyin. marka guurkuna aad buu ugu adag yahay inuu qofku dhaqso horay u guursado, gaar ahaan dalka Masar. oo qofku inuu lacag yeesho oo tabcada mooyaane guur horeyda uma gali karayo. gabadh baa doonanaysaa, dhowr sano ay qaadanaysaa intaad u shaqaysanaysid eed guursanaysid. wiilkaas iyo gabadhaas waxay ahayd arooskoodii maalin Jimco ah. tuuladii oo dhan ay iskugu timid. ma ahayn aroos weyn oo howl weyn inta loo dhigtay dadkii oo dhan iskugu yimid ma ahayn, maxaa yeelay tuuladuba waxay ahayd tuulo aad u yar, laakiin dadkii tuuladaas oon u kala harin baa arooska iskugu yimid maadaama wiilkii gabadhuna ay qaraabo aad u dhow ahaayeen. maalinkii oo dhan baa la boodboodayay, cuntadii baa la cunayay, waa la faraxsanaa. habeenkii baa la gaaray maqrib kadib heese iyo waxbay shiteen sida caadada ahayd si loo baashaalo. dhalinyaradii iyo labadii qoys qoyskii gabadha iyo qoyskii wiilkaba habeenkii oo dhan baa la baashaalayay. sida loo boodboodayay arooskii loo ciyaarayay, wiilkii gabadhiina way ciyaareen, way soo daaleen, way soo fadhiisteen. markii dambe wiilka wuxuu u yeeray shaqaalaha arooska dadka cuntada u geegeynayay. mid kamid ah wuxuu ku yiri waxaad noo keentaa 2 caag oo biyaha caadiga biyahan maysaxada ah. wuxuu ku yiri marka inta wiilkii uu ugu maqnaa biyihii baa arooskii aroosadu waxay arkeen waxay la yaabaan. ciid baa sida loogu saydhiyay, carro baa lagu buubiyay labadoodaba. cidda ku shubtay carradaasna maysan arkin. markay geesaha fiiriyeen dadku uu iska ciyaaraya, cid u dhow ma lahan, way la yaabeen. wiilkii uu soo noqday wuxuu u keenay biyihii. wiilkiina wuxuu bilaabay biyihii inuu cabo. marka biyaha sida caadiga ah dhadhankoodu uu noqon karayaa biyo wiyeera, waxoogaa adag way noqon karaa culus, laakiin ma noqon karaan biyo cusba lagu daray. biyo cusba lagu daray bay biyihii dhadhankoodii noqdeen. wiilkii uu yaabay, shaydaanku iska naaray. wuxuu yiri war malaha adaa ismoodsiiyey, waxaas waxba kama jiraan. gabadhiina waxaa u timid islaan maamooyinkii kasoo qaybgala arooska ka mid ahayd. waxayna u keentay lacag 50 gini Masri ah. lacagta 50 gini ee Masar waxay u dhigantaa adigu $4 qiyaastii ama $3 iyo wax. adigu waxaan $5 gaadhin weeyaan. on deeq un bay noqon kartaa, wax kale ma noqon karto. gabadhii way ka tagtay. gabadhiina waxay cabtay biyihii 50 gini bay meel iska dhigatay. wax yar marka la ciyaarayay maxaa dhacay? filin markaad daawanaysid, filinka dadka uu quseeyo waxay u qaybsamaan 3 qaybood. marka laga reebo shirkadaha ama dadka soo saara filinka iyo dadka sawira. marka laga reebo dadka filinka jila iyo dadka uu filinkaas ula xiriiro, 3 qaybood bay u qaybsamaan. qaybta koobaad oo ah atooraha iyo atriishada, dadka qisadani ay ku socoto. qaybta labaad oo ah caawiyayaasha. sheekadanu si ay u noqoto mid dhammaystiran waxay u baahan yihiin dad caawiya.
marka dadka la jilaya hooyada aabaha walaalka qoyska iyo kuwa tuugada u jilayaba waxay sameynayaan sheekadanu say u noqoto mid yeela iyo la yeela iyo bilow iyo dhammaad iyo meelay ka jeediyo meelay u jeeda leh caawiyayaal weeyaan intaa markii uu ka gudbo kadib qaybta saddexaad waxay noqonaysaa daawadayaasha daawada filimku marka uu soo baxo marka waxa halkan ka dhacaya waxaan u qaybinaynaa 3 qaybood sidaan horeyba u sheegay tan koobaad oo ah atooraha iyo atriishada tan labaad oo ah caawiyayaasha atooraha iyo atriishada si sheekadu u dhameystiranto iyo tan saddexaad oo ah daawadayaasha filimku marka uu soo baxo kadib daawada aan ku horeyno caawiyayaasha intaa kadib maxaa meesha ka dhacay wiilkii markuu casiirkii biyihii cabay wuu mantagay meeshii buu ku mantagay goobtii marka wuxuu is yiri wali isagoo shaki ku jiro oo waxaan dhacaya u arka inaysan marnaba dabiici ahayn haddana nafta wuxuu ku sasabayay waa habeenkii arooskaaga waa habeenkii farxadaada waxaa niyada ka saar shaydaanka iska naar waxaa loo keenay dadkii shaqaalaha ahaa ee meesha ka shaqaynayay dadkii waxaan ka wadaa meesha ku ciyaarayay ee qoyska labada famil ahaa iyo dad kale oo badan oo meesha ku ciyaarayay masraxa ku ciyaarayay waxaa loo keenay maadaama ay daaleen oo ay oomeen biyo casiirka la qasa ama sharaabka la qaso ee budada nooc la yiraahdo tamar hindi oo carabuhu aad u isticmaalaan ma garanay Soomaaliya in laga helo Soomaalidu isticmaasheen kale laakiin tamar hindi baa la yiraahdaa waa casiir buda biyo lagu walaaqa iyo sokor kadibna koobab baa loogu soo shushubay baraf baa loogu daray dadkii baa loo qaybiyay masraxa taagna inta fadhiday maaha inta masraxa taagnayd ciyaaraysay way cabeen dhowr daqiiqo kadib wiilkii wuxuu arkay hooyadiisoo farxad la ciyaaraysay maanta dhan oo suuxday wuu yaabay wiilkii dhanka hooyadii markuu is yiri u dhaqaaq dhinaca kale haddana wuxuu ka arkay walaashii yar oo ina adeertii iska laalaadisoo ku booday oo iska rifayaan dhinacan kale iyo dhinacan markuu labadiiba la yaabo hortiisa haddana wuxuu ku arkay ina adeertiis oo timaha iska rifaysa kaligeed baa isrifaysa cidna ma rifayso xijaabkiiba iska tuurtay timihiiba iska rifaysa timihiisay u jiidaysay jag ugu haysay waxay bilowday diirka timaha inay soo fujiso marka dambe oo timihii meeshii dhiigka yimaadaan meeshii ka soo fujisa timahaba isagoo waxaan dhacaya marka wuxuu aaminay inaysan marnaba dabiici ahayn wixii inta ka horeysay xaaladdu iska deganeed farxaddu cirkaas ay maraysay wax walbana dabiici bay ahaayeen laakiin wixii inta ka dambeysay wuxuu ogaaday xaaladdu inaysan dabiici ahayn umarba wuxuu la yaabo uu arko intaas markay dhacday dadkii masraxa saarnaa waxay shiteen hees la yiraahdo alla laba la isku dagaaliyay alla labadeenu caawa ma isku boodnaa hees la yiraahdo laba la isku qabsaday dumarkii xijaabadii iyo dhaylaamahay dhigteen raggii iyo dumarkii laba waxaan ku irin ninba ninkuu u dhawaama aragtay buu ka rifay dagaal jugja inta markay dhacday dumarka codkoodii marka wuu isbedelay wuxuu noqday cod rag oo kaleeta raggii waxay noqdeen codkoodii waxay yeesheen codka fuufta abeesadu siday fuuf u dhahdo kale codkaas oo kale qariibka abay yeesheen inta waxa dheerayd dadkii waxay noqotay in isdagaasha in suuxda oo meesha ku suuxdo miir daboolanta iyo in iska noqoto tabeela taagan oo dhinacna u dhaqaaqayn haddaba kuwani waxay ahaayeen caawiyayaasha filimka aanu soo noqono daawadayaasha aanu soo noqono ka hor atooraha iyo atriishadii walaashiis ka weyn baa waxay aragtay xaalkan inuusan marnaba ahayn xaalad caadiya waxay istiri ama waa jin ama waa sixir marka waxay aaday guriga waxaana soo qaaday kitaabkii markay sidaa u furtay ee aayadii u horeysay akhrisay baa cirka loola booday iyadana cirka inta loo qaaday baa dhulka lagu dhuftay way iska suuxday iyadina meesheeda ku suuxday intaa waxaan kaga tagaynaa dadkii caawiyayaasha filimka aanu soo noqono atooraha iyo atriishada filimka oo ahaa arooska iyo aroosada arooskii markuu arkay wiilkii arooska ahaa inaysan xaaladani caadi ahayn wax alla wuxuu sameeyeen uu garan waayay wuxuu is yiri naagtaada badbaadso adiga naagtaada gacanta isqabsada arooska iskaga taga maxay leeyahay cid uu caawin karaba mara dadkii oo dhanba way wada waasheenba naagtiisii buu ku yiri inakeen aan baxno way diiday naagtu marka waxay noqotay noocan meesha ka dhaqaaqayn dadkii noocii waxay noqotay sanamka noqonaya meesha iska istaagay wuxuu ku yiri inakeen aan tagnay way diiday uu la hadlay uu sasabay wuxuu isku dayay inuu xoog ku kaxeeyo waxaan maqli jiray dhagax tuurid iyo taabasho waa iskaga mid ama tuurid tan tooba iyo taabasho waa iskaga mid marka noocna dhinacna markay u dhaqaaqo weyday wuxuu bilaabay inuu la feertamo fici camal u feedha naagtii wax alla wuxuu ku sameyn karay buu ku sameeyay dharbaaxa feer qaniinyo laad wax kaste naagtii meesha uu ka soo fujin waayay inta markuu sameeyay wuxuu bilaabay inuu dharka ka jeexjeexo cambuurkii arooska qabtay inuu ka jeexjeexo
cambuurkii arooska markuu ka jeexjeexay wuxuu u raaciyey sidan kuma sii wada joogi doono maxaa yeelay jid iyo jahaab uu ka waayay isma laha marka naagtan waxbaa ku jira isaga laftirkiisa waa lagu jiraa wax caadiya ma laha waa isla wada waasheen dadku intaas isagoo naagta khaaq tuf ay kala taagan yihiin welina is hor taagan yihiin intaasna dhex martay baa waxa uu yimid mid yaroo shaqaalaha ka mid ah wuxuu ku leeyahay kaalay adiga naagtu halkaa ku ciyaara maxay ciyaari isagaaba ka kari waayaba kaalena guriga kaalay aadeen buu ka kari waayaba naagtaasaa la ciyaaraysa aanu soo noqono qaybtii saddexaad oo ahayd daawadayaasha daawada filimku marka uu soo baxo dadka intii biyaha cabtay cabitaankii loo keenay cabtay waa inta waalatay wiilkii iyo gabadhii arooska ahaana waa kuwa waasha isdagaalay marka intii soo hadhay oo ah in laga tira yar yahay in laga tira badan yahay baan u jeedaa waxay bilaabeen meeshooda inay ka dhaqaaq waayaan cabsi iyo argagaxta koobaad talabaadna waxay isdhaheen qofka marka jinni ku jiro ama markuu insiba ku jira hadduu doono ama sixir la siiyo xooggiisa iyo awoodiisu way ziyaadaa marka waxay isdhaheen dadkan isku xoog ma tiidin haddaad lacalla isku daydaan inaad qabataan ama iyaga kale celisaan dee idina way idin dilayaan iyo waxaa kaloo maskaxdooda ku jirtay waxaan sidoo ku dhacay iyagu wafeeyow yihiin soo maaha waxaan sidoo ku dhacay inay isweydiiyaan oo midba midka kale maaragtay weydiiyo dhaho sidan waxaan sidoo ku dhacay ama isagu ka fikira maskaxiyan kaliya isla sheekaysto muddo markay fikirayeen dadkii waxay go'aan ku gooyeen wiilka iyo gabadha inay meesha ka kaxeeyaan oo geeyaan gurigooda wiilkii iyo gabadhii baa dadkii intii caafimaadka qabtay waxay isku qaybiyeen laba qaybood qayb wiilkii bay xambaareen qaybna gabadh naagtii dee dhagaxa noqotay meesha laga fujin waayay bay xambaareen gurigii baa la geeyay guriga kamaysa soo bixin dadkiina waa la kaxeeyey meesha waa lagu kala kaxeeyey quraan baa la saarayay muddo 4 bariya sheekh bay u yeedheen tuulo kale wiilka abtigiis baa wuxuu aaday tuulo kale markiiba habeenkii arooska wuxuuna u yeeray sheekh caan ah oo quraan saara oo ku tufa quraan baa lagu akhriyay dadkii wax ka soo reeyna waa laga waayay 4 bari kadib sheekhu wuxuu ku yiri dadkan sixir baa la siiyay oo biyihii la qasay sixir baa loogu daray sixirkaasna ma aha sixir caadi ah waa noocyada sixirada kan ugu khatarsan weeyaan inta kaliya ma ahan habeen walba waa loo cusboonaysiiyaa waxa dheer intaas guriga wiilkii gabadha ama dadka xanuunsanay joogaan ee lagu dabiibayo in biyo taxliil lagu rusheeyo odaygii abtiga ahaa dadkii baa loo sheegay waxa lagu yiri marka waxa jirta oo looga shakiyay markii arrintani dhacdayba naag arooska joogtay oo la yiraahdo saxar magaceeda ay magaalada ku joogto waa saxar laakiin magaceeda asalka waxa la yiraahdaa daada waxay kale u bixiyeen dajaala bay u bixiyeen dadka tuulada yarta degan oo dajaala way ku naanaysi jireen oo way ugu yeeri jireen waxay dhihi jireen naagta sixirka iyo falka iyo wax la laabka iyo waxaas ay taqaanaa naagtaas waa islaanta gabadha siisay kontonka geniye lacagta ah waa islaanta cabitaanka qastay dadku uu cabayay oo u qaybisay horeyna waxaa loo ogaa inay tahay qof waxa ku shaqaysata ama la xidhiidha inay tahay marka wuxuu yiri odaygii abtiga ahaa markii inta loo sheegay naagtaas maadaama laga shakisnaa gurigeeda hal la ilaaliyo dad baa marka guriga meel dheer ka waardiyeynaya darisyadii iyo loo diro lagu yiri guriga kor ka waardiyeeya habeenada kamid ah oo habeenkii afraad ah baa waxa u yimid waqti ay tahay kowdii habeenimo nin isna sixirkii waxa sameeya oo wada meel fogna uga yimid tuulo kale uga yimid oo wada 4 diiq oo nool gurigu soo galiyay sidoo guriga u galay gaari buu ku yimid guriga sidoo u galayna kama soo bixin gurigana waxa jooga naagtan saxar magaceeda markii hore uu ahaa ee daada magaceeda saxda yahay waxaan ka wada magaceeda saxda daada yahay ee saxar hadda loogu yeero iyo ninkeeda kaliya joogay guriga hore u joogay ninkan martida ay u yimid saddexdoodaas joogay gurigana kama soo bixin waxay bilaabeen marka dadkii inay u sheegaan odaygii wiilka abtigiisa ahaa in naagtan ay ka dambayso 100% oo shakigoodii uu yaqiin yahay aroortiiba waxay ku bilaabeen dagaal weerar bay ku qaadeen dab bay qaadeen laba gaari oo guriga u taalo midna ninkeeda iska lahaa midna ninkii u yimid ee saaxirka kala iska lahaa bay dab qabadsiiyeen iyadii marka waxay wacday askartay wactay markiiba si loo caawiyo iyadii gurigii bay ku jabiyeen wax kale ma yeeli karaan laakiin way sii jugayeen meesha qaanuun baa ka jiray sharci way sii jugayeen gurigii bay baareen waxyaabaha sixirka iyo waxaas ay ku arkeen dhiig iyo waxyaabo noocaasa askartii baa markiiba timid gurigii bay damiyeen markii hore dabdamis bay soo qaateen gurigii bay damiyeen iyo gaarigii iyo waxay dabka qabadsiiyeen iyagii meesha joogay
iyo saddexdii qof ee meesha joogtay dad 11 qof ah bay askartii soo xidhay 11 qof saddex qof waxay ku eedeysan yihiin inay sixir sameeyeen oo reerkan iyo dadkii arooska ka soo qayb galay dhamaanba ay sixreen sideedda kalena waxay ku eedeysan yihiin inay ku tunteen oo ku xadgudbeen hanti gaar loo leeyahay waxaa la keenay markii dambe dadkii waxaa lagu yiri 15 bari baad xidhnaanaysaan inta uu socdo baaritaanku wiilkii iyo gabadhii arooska ahaaba maalinkii dambe maxkamadda looga yeeray si ay u sheegaan wixii meesha ka dhacay wiilkii wuxuu yiri arooskayga wixii ka dhacay waxay ahayd calaamadda saacadda qiyaamaha ma ahan waxaan weligay ilaawi doono duniduna ay ilaawi doonto wuxuu yiri habeenkii dunida iigu farxadda badnaa ee habeenkii arooskayga ahaa ee familkayga horteeda ku ciyaarayay waxaan arkay hooyadaydii faraxsanayd oo dhulka ku dhacday oo suuxday walaashay oo in adeertay ku booday in adeertay oo timihii iska riftay goobtii arooskayga ee goobta farxadeed ahayd oo fayd kalaab isku bedesho laba isqabsatay codad aanan abid kay maqal oo aadamuhu ninba cod gooniya uu maaragtay ku hadlayo marka wuxuu yiri wixii arooskayga ka dhacay ma ahan waxaan hilmaami karayo sheekadan waxay qabsatay baraha bulshada dhammaan wadamada carabta oo dhan qof walba oo maqla ama looga sheekeeyana waxay noqotay mid dhakafaar ku rida oo maaragtay ula yaabo waliba waxaa soo maaragtay galiyay wargeys la yiraahdo saxiifatul watan TV-yada caalamiga ah waxaana loo bixiyay sheekadan saxar naagta maadaama saxar la dhihi jiray saxar waxay sixirtay arooskii iyo waxa kale loo bixiyay arooskii sixirnaa sheekada haddaad dhamaysatay oon halkan isla soo gaadhnay waan kaaga mahadcelinayaa muuqaalkan haddii aad ka heshay suulka saar si aad noogu soo biirto oo nooga mid noqoto famil aad ku jecel subscribe taabo wixii fikir iyo ra'yi isweydaarsi ama aad jeceshahay channelka inaad ka aragto fadlan qaybta hoose ee commentiga ama faalada noogu reeb wayna muuqaalka kan xiga insha Allah nabad iyo caafimaad baan idinka tagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.